dadka dhan waa igu kaftamayeen waxay dhihi jireen nin reerahaas maadaama 4.5 ay tahay siyaasadda nin reerahaas oo qabooba lagu shaqaysan karo oo aan waxba qaniineen hal raadiyo run waa kaftan way magaca lii bixiyay tusbaxan magacyada lii bixiyo kamid aha barafa lii bixiyay lehelo lii bixiyay ma waxa soo waa alxamdulillah waxyaabo oo dhibay ma ahayn sababtoo ah aniga waxaan markasta ogaa shakhsiyadeeda aniga ogaa oo marnaba waxaan ogaa in waxaasi wax la mid ah aysan waxba ahayn oo dadkan reaction koodana oo san saameyn ugu lahayn sababtoo ah aniga target aan lahaa ama hadaf aan lahaa hadafkaas oo ah in aan dalkan doorasho geliyo ayuu ahaa laakiin maxaa la yiraahdaa labada dhinacba shacabka intooda badan iyo intii adiga la qabto fikirkaas iyo dhinaca kaleba fikradaas way qabeen laakiin aniga markasta waxaa hadaf ii ahaa in doorashadan aan si sax u qabto aanan qofna ka hibaysan mideed kale waxaad ogaataa waa laga fiican yahay inaad qof markasta dulmiso Soomaalidu waxay jecel yihiin siiba dadkan xamar aan ka soo jeedo iyo agaarkooda in qofka marka la magacaabo isla markiiba seef la soo baxo ama dhagax qaato ama qarshada jabsado xilli waxaan ku jirnaa maskax oo fiyow aqli iyo siyaasadu inay shaqeysaa waqtiga xoog bini'aadanka xoog oo waxa ugu dambeeyo isticmaalo marka xoog waa laga tagay waa in qalinka uu shaqeeya maskaxda ay shaqeysaa saas darteed waxaan markasta ana alla ku xiran markastana allaan ku xirnaayo inta badan alla dartiisan ku soo badbaaday anoo kaashanayo habeen iyo maalinba in aan dariiqa aan ka leexanin